lafta-gareen taageeroy muujinoy meel walba rogtaan taageerne muujine meel walba rogtaan muwaadin dhiirano magii ulule musuqan suubiyano madawiinageen koonfur galbeed cabdicasiis lafta-gareen taageernoy muujinoy meel walba rogtaan taageerne muujine meel walba rogtaan madawiinagano adamaamul kiinko hobe madawiinagano adamaamul kiinko hobe bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhda ay ku beegan tahay 22 May 2021 wuxuu madaxweyne Cabdiraxmaan xasan maxamed lafta-gareen oo wehelinayaan wasiirada dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay kulan la qaateen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ee uu horkacayo madaxweynahii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Cabdiraxmaan xasan maxamed lafta-gareen oo kulanka caawa isugu jiray kulan casho iyo xog wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka sidii xal waara ah loo gaari lahaa qabsigii dheeraaday ee arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mar walba waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii xal waara ah loo gaari lahaa isqabqabsigan dheeraaday in xal waara laga gaaro kulankan wuxuu ku qotomay in la taageero shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho oo maanta ugu furmay madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka oo ka cayiray wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya marka madaxweyne Cabdiraxmaan wuxuu dadaal dheer ugu jiraa sidii shirkan loo maray dhalin lahaa qodobada ka soo baxay uu noqdo qodobo guul u soo hooyo ummadda Soomaaliyeed waa maasantiin wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh